madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu kormeeray dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe oo heer gabagaba maraya. Ayuub Cabdikariin Cali ayaa warkan inooga soo diray magaalada Garowe. madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe oo dhismihiisu gabagaba marayo. kormeerka madaxweynaha waxa ku weheliya wasiirka duulista hawada dawladda Puntland, mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada, xildhibaano iyo maamulka gobolka Nugaal. madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horreyn soo kormeeray dhammaan dhismaha garoonka oo shaqo ka socotay. waxaana madaxweynuhu xog wareystay shaqaalaha shaqada ka waday dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe. madaxweyne Gaas ayaa ku ammaanay mas'uuliyiinta wasaaradda duulista hawada ee dawladda Puntland sida wanaagsan ay ugu howlan yihiin dhamaystirka madaarkani. markii uu soo ilaaday kormeerka madaxweyne Gaas ku tagay garoonka Garowe waxa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda duulista hawada dawladda Puntland Xasan Xaaji Ciise oo ka warbixiyay kormeerka madaxweyne Gaas. maanta meesha waxaan isku nimid kormeer madaxweynuhu inuu ku yimi hawsha xoog leh oo ka socota dhamaystirka garoonka diyaaradaha caalamiga oo Garowe. waad aragtaan shaqada ka socota jayga la dhigay dhamaadkiisii dhinaca baabuurta baarkinkooda la diyaarinayo wadadii laga soo galayay airportka la diyaarinayo shaqooyin badan oo xoog leh ka socda sidoo sharxay injineeraduna shaqadaas waxay ku dhamaan doontaa ilaa bilood soo socda October dhamaadkeeda insha Allah ayaa jadwalku yahay in gabagabo waxaan rajaynaynaa shaqo wanaagsan oo waqtigeeda ku dhamaatay in halka ay ka soo baxdo. Ayuub Cabdikariin Cali, Somali Cable TV, Garowe.